بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة بونتلاند مدن سعيد عبد الله الدني ومانتا كلن لقاطي اسمدا نبضوندا iyo waxgaradka iyo cuqaasha gobolka mudug kulanka waxa madaxweynaha ku weheliyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda Puntland Abukaate Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda maamulka gobolka iyo kan degmada iyo la taliyaal sare oo madaxweyne ujeedka kulanku waxa waa in laga hadlay dardargelinta hawlaha amni sugidda ee ka socda gobolka mudug guud ahaantii odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo simadu way hadleen waxaana ay dawladda u soo gudbiyeen inay diyaar u yihiin inay ku garab taagan yihiin dawladda wax kasta oo lagu sugayo amniga wax kasta oo lagu la dirirayo maandooriyaha wax kasta oo lagu la dirirayo wax kasta oo dhibaato ku keenaya guud ahaanba gobolka ayay halkaasi dawladda u sheegeen inay diyaar u yihiin in talaabo laga qaado cid kasta oo amni darrada qayb ka qaadanaysa iyo nooc kasta oo amni darro oo gobolka ka jira sida maandooriyaha iyo waxyaabaha kale ee amniga wax u dhimaya madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu hoggaanka dhaqanka ee kulanka la qaatay uu la wadaagay qorshaha istiraatiijiyadda horumarineed ee dhinaca amniga ee guud ahaan gobolka mudug iyo guud ahaan Puntland iyo dawladdu sida isbedel xoog leh ugu wado guud ahaanba gobolka mudug gaar ahaan dhinaca amniga ciidamada la tababaray ee la tayeeyay iyo tirakoob ka socda iyo waliba hawlgallada amniga lagu sugayo oo amniga xoogga lagu saarayo gobolka ka socda dhammaanba waxgaradku ay soo dhaweeyeen waxaana uu kulanku ku soo dhamaaday guul hoggaanka dhaqanka ee gobolka mudug iyo guud ahaan odayaashu waxa ay dawladda ku garab istaageen hawlgallada amniga lagu sugayo ee lagula dirirayo waxyaabaha amni darrada keenaya shirkaasina waxa uu ku soo dhamaaday guul waxa uu qayb ka yahay kulamada qaybaha kala duwan ee bulshada uu madaxweynuhu la qaatay guud ahaan aad bay u bogaadiyeen hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka gobolku tallaabooyinka dhinaca amniga lagu sugayo iyo dadaalada horumarineed ee gobolka ay dawladdu ka wado weyna uga mahad celiyeen muddada dheer iyo waqtiga ay dawladdu gelisay in isbedel muuqda oo la taaban karo oo tayaysan ay guud ahaanba gobolka mudug ka hirgeliso aad iyo aad u mahadsan